السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. walaalyaal kusoo dhawaada waa xalqadihii aan ugu talagalnay inaan isku baraarujinno sidaan uga faa'iideysan lahayn bisha barakeysan ee Ramadaan. xalqadantii ka horeysay waxaan kaga soo hadalnay qaybaha dadku ay ka kooban yihiin bisha Ramadaan. afar qaybood baan ka soo hadalnay. qaybtii shanaad baan halkan ka galaynaa. yacni qaybta shanaad waxa weeye alqismu alkhamis alcaajizu can asiyaami cajzan mustamiran. qof soonkii awoodi waayey awooddaasoo ay tahay mid uu u keenay xanuun joogto ah oo qofkaasi uu hayo oo haddana aan la rajaynaynin inuu ka caafimaado, ama yani qofkiioo gaboobay oo runtii da weyni yani ay u keentay inuu awoodi waayo. markay arrintaasoo kale sidaas ay tahay waxa weeye ma aragtay dadkaasu yani waxay noqonaysa ma aragtay inay iska furaan soonkii oo maalin walba oo ay iska fureenna ay maaragtay ay bixiyaan miskiin inay quudiyaan. fidyatu طacaamu miskiin, fidyatu طacaam miskiin. marka qofkii xanuunkiisii joogtada ahaa yani iyo qofkii waxaana gaboobay waxay bixinayaan qof maalin walbaba qof miskiina ayay quudinayaan, qof miskiina ayay quudinayaan. sidaasaa ma aragtay yani sharcigu u jiday wey. waxaa marka inoogu xigay qaybtii lixaad qofka musaafirka ah. qofka musaafirka ah ee safraya, qofkaasi haddii safarkiisuusan ula qasdaynin inuu soonka kaga baxsado oo safar iska caadi oo danihiisi iyo ama cilmi raadsanaya ama tijaari iyo wixii lamid ay tahay, waxaa u bannaan inuu soonkii iska furo oo markaasi maalmihii uu yani soonka jebiyeyna ramadaanta markii la dhaafo yani kadib waqti kale inuu soo qadeeyo. waxaa yidhi ilahi subxana watacala wuxuu yihi waman kana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar. qofkii sooman yani qofkii idinka idin ka mid a xanuunsan ama musaafira maalmo kale inuu soo qadeeyo ayaa korkiisa ah, ayaa korkiisa ah. waxaa la mid ah qofka musaafirka ah qofka maalan yani shaqadiisu ay tahay yani maalan safar oo bas wada ama traag wada bishii ramadaanka o dhan safar ku jira, qofkaasi waxaa u bannaan inuu sidoo kale yani haddii marka yani uu iska furo oo markii yani muxuu ahaa bil kale yani markaas haddii ilaah yidhaahdo markaasi bishaas iska soomo. yani haddii khaasatan haddii bishaasi ay tahay bil aada u kulul yani oo runtii waqtigeedana uu dheer yahay in uu iska furo, kadibna maadaama musaafir uu yahay ruqsadii safarka uu qaato mar kale oo bil kale oo qaboobo ah oo markaas uu neg yahayna uu soo celiyo wixii maaragtay maalmihii ama bishii ramadaanka ayaa lagu lahaa. yani qaybtaasina waa qaybtii qofkii ma aragtay maaragtay musaafirka ahaa. qaybta ku xigta ama toddobaad waxa weeye qofkii xanuunsanaa laakiin xanuunkiisuusan ahayn xanuun joogto ah oo xanuunkaasi uu yahay xanuun insha allahu la rajaynayo inuu ka bogsado. saddex qaybood baa loo kala qaadayaa. in uu yahay xanuunkaasi mid aan soonku dhibaynin, soonkuna dhibaato u keenaynin, soonkan inuu soomana culays ku kordhinaynin, yani waa soomi karaa wey. isla markaasina haddii uu soomo xanuunka wax dhibaato uu ku kordhinayo ma jiro, qofkaas inuu soomo ayaa waajiba. tan labaad, soonka ayaa dhib u keenaya ma garatay, ama waaba ku culus yahay soonkii, xanuunkiibaa yani waa dhib badan baa ka gaaraya soonkii maadaama uu xanuunsan yahay, ama soonkii xanuunkii inuu ku kordhiyaaba suuragal ah. markaasi waxaa u bannaan inuu afuro. maxaa yeele ilahi wuxuu yihi waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar. saddexdaas qaybood buu sheekh maxamed salim ibn cuthaymiin u kala saaraya. tan koowaad qofki inuusan soonkuna dhibaynin isla markaasina soonkana uusan dhib ku keenaynin ama kusoo kordhinaynin xanuunkii. tan kale in uu soonkii yani ma aragtay muxuu ahaa uu dhib u keenayo xanuunkii ku kordhinayo, laakiin ama an yashuqa calayhi soom walaa yaduruhu. soonkii baa ku culus
laakiin dhib u keeni maayo isla markaas inuu afuro ayaa u bannaan. Tan saddexaad waxa weeyaan soonkii dhib buu u keenayaayo waxaa caddaatay haddii uu gaajoodo oo sii daro in xanuunkiisu sii darayo ama dhib weyn uu sii gaarayo, taasuna hadde markaasi waxaa waajib ku ah in uu iska furo. maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima, naftiina ha dilina, ilaahay subxaana wa tacaala waa mid idin naxariis badan. marka qaybahaasi yani intaasoo qaybood ayaan xalqada kusoo gabagabaynaynaa. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.